boqolaal ku mid ah shacabka reer Baydhabo iyo mas'uuliyiin ku tirsan xubnaha lamada gole ee dowladda iyo geeka Hanaskabahi baa horbuuba dageen ka shaati guduud airport magaalada Baydhabo sameelasay yohan ka dhawaayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xsan Sheekh Aadan oo howlo shaqo muddooyinkii ka dambeeyay ka moganay dalka banaanshay may bana madaxweynaha Madiisa Hadeeri gudaha magaalada Baydhabo lahan ka dhawaayay isku duban siyaabooyinkii hore dadka yahay hano safaf dheer ka gali runway-ga ceelboorka iyo onololayaan caleemo qoyan boorar iyo ka qornaayeen halku dhigyo ku muujayaan dareenka kiisho ka eedan hadhawaayo ka madaxweyne Shariif Xsan Sheekh Aadan madii ay caga dhigatay diyaaradii waday madaxweynaha may badurbadii isbedelay dareenka dadweynaha may bana hal mar irka iska shareeray sacab alalaasi eraya amaan oo dadweynaha iyo ka dhawaayaan madaxweynaha Shariif Xsan Sheekh Aadan iyo Madiisa ku dagay diyaaradda may baa soo galnya korn loola u salaan la dhax qaaday dhamaan shacabkii Hanaskabahi hadhawaayo ka keeshay intaasay kureedya madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la dareertay ballahan galbi madaxtooyada Koonfur Galbeed iyadoo socod dheer iyo hakamareen intaan dhaxayta madaxtooyadii ceelboorka shaati guduud madaxweynaha iyo Madiisa Hadeeri madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya may baa la hadlay saxaafadda may banowsan ka horeen mahadnaqay dhamaan shacabkii hadhawaay usoona tilmaamay inay walwalba iyo saldhigin ata nabadda ku jirta magaalada Baydhabo nabadda ilaahayna si ilaahaynin ziyaadiye runtii ciidankii nabaddan ku shaqeeyay oo aan ka horeeyaan ciidamada amisom walaalahan oo Itoobiya iyo ciidamada dawladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo Koonfur Galbeed iyo dadweynaha qaybashay shil duwan oo nabadda fahmi wala nabadda ogaadi nabadda ka shaqeey ciidanka mahadnaqaan nabad laantii malnisko ay kor nabad laantii nabadda naas nuugule runtii ciidankaasi ka mahadnaqa gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha qaybashay shil duwan iyo ururka haweenka iyo dhalinyarada dhamaantii salaamantiin iyo odayaasha dhaqanka runtii ciidankaasi salaame hadhawaayo kun ciidankaasi kaga mahadnaqa walaal jarasiisan dhawaayteen Shariif Xsan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa intaasiyay ehelada dadkii dhawaanka geeriyooday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose may bonus Xuseen ciidamada dawladda ee Koonfur Galbeed leen ku baahanyay in ku daba seedaan kooxo nabadeedka ee ku dambeeyay dhibaatooyinkii dhawaan ku dhigay deegaanka Bariire waa niyo ku xoreeyaan dadkii dalka tan kalena kaan dawladiidka dhibaatadan ay hayaan gaar ahaan walaay waqti dhoonka dambooy hata ku dhiyay Bariire gobolka Shabeellada Hoose eedeedan ku xogna haan dawladiidkana Ilaahay wali ku tuuganayna Ilaahay noo qabado ciidamada geesiyiinta intiyoonay ku daba seedano wal alla waliyoonay karaansho iyo hortuba ku qabado jaran ku qabadan waana ku xoreeyaan dalka dadkiya ku codsade runtii eedeedno aan ka mahadnaga ciidamada amisom dadaalkii wada iyo caalamka suusaneenka kaalmay oo hay nabadda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xsan Sheekh Aadan ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ku mid ahaada jirtay dawladaha quwada weynay markii la ku dawaha qaaradda Afrika xaaladda geekaniya geesidii siyaasadda Digniin may banus shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed ka baaqay in la dejiyo siyaasadda saleendar horumar kan geeka ku fayla Soomaaliya dawladnimadii Soomaaliya dawladaha ka fayla Afrika dawladaha weyn ka xoog badan ahaada jirtay siyaasan Digniin daraadii dhibaatooyin ka dhidi dhibaatooyin inuu ku kabsano fadaan siyaasad degan leen helna dhibaatooyin markuu kabsado koro way balena siyaasad hal dijiyoy dadka Soomaalida meel kasta roogan nabadhay ka wada shaqeeyay Soomaaliya dawladnimadii inay hanagato dawladnimadii hanagata midnimada Soomaaliya iyo dawladnimadii inay hanagadan madaxweyne Shariif Xsan Sheekh Aadan soo kala muujiyay in shacabka reer Koonfur Galbeed iyo ayeen dad dawladnimada in nabadda jeelista markaasayna danta tiidiyo ka jarta nidaamka federalismka taasoo sheegay madaxweynaha in odayaasha Koonfur Galbeed iyo konton sano ku hor qaadeen federalismka runtii reer Koonfur Galbeed waliba laha Soomaaliya dawladnimadii muqaddas waay oo dawladnimada madiidinayna dawladnimada walishiina reer Koonfur Galbeed waliyoona ayina dadka dawlad jeel dadka nabad jeel dadka dawladnimada runtii
runtii taasiinka mahadnagaan haddana may la faday in Soomaaliya dawladnimadeeda la kawada dadaal laakiin reer koonfur galbeedow wali latiina aysan federalism latiin konton sano ku hor ya odayaalkii siyaasiyiinta ay xilligaas roogeen wali adduunkan ka baaqayna Soomaaliya inay federal nagato waqtigiisu ay suurta gal waaytay Soomaaliya reedahan nagati federal lantis dadkaas gorashadii tiyo oo gorashadii iyo gordan geewsiga hadii la gordo fadi geeka Soomaaliya meel roogdum rooga lahayn Soomaaliya federal hadda federal la qaaday wala aysan dhaxalan latiin waliba federal way federaalka inaysan lama gacmood ka qabsataan way dada ku fikiro haaya in federalismka la baabiyo federalismka dhumo federaal dhaxalan latiin waa inaysan federalismka ka dadaalan federaal hadda la nagadi Soomaaliya federal way dawlad maamul waaye dawlad dhexe oo xoog leh diyaaran in dawladda xoog weelata dawladda dhexe meel hindhow wal aragayaan gacmo wal qabadayaan dawladda dhexe way laakiin maamulada iyo federalismkana muqaddas way oo federaalka inuu ka wada shaqeeyno way reer koonfur galbeedow inay federaalka lama gacmood ka qabsataan way haddii federaal dhuma sideen dhusanaaytaan dhusanaadaan ka dambeeyay madaxweynaha Mayboos Xuseen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu saleeyay hay'adda dastuuriga oo sharci ka dhisan isla markaasina walaay warbixinaha uu isla wadaaga doona hay'adooga say uu soo gabagabadii kulan albaabadan hirin uu isla qaadaday hano kumid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya una way balana hay'adda dastuuriga madaxweyne lana gudoomiye baarlamaanka lana gudoomiye lana maxkamadda lana wasiir lana hay'adahan odayaal dhaqan oo taariikhda laga gordo walijo wala dhisi jiraan lana taariikhdan oo ismaraan wal alla wali warbixin ama siyaasadana hay'ado siyo ay si doonaan biidin karim idan ma sitiin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh Shariif Xsan shaqeeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo mudooyinkii ka dambeeyay howlo shaqo ka maqnay hano kumid ah wadamada caalamka Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi Southwest Television Baydhabo